بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay xaaladaha guud ee waqtiga kan dalka uu ku jiro iyo midowga musharaxiinta oo go'aamo cajiib ah soo saaray Rooble iyo kooxdiisa oo guul ka gaaray doorashooyin Muqdisho ka dhacay iyo guddiga doorashooyinka oo Rooble waqtiga kan saameyn gaar ah uu ku yeeshay iyo Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre oo hadda u muuqanaya kuwa gooni isku taag ah iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladaha guud ee waqtiga kan jira ayaan daawadayaal warka janaalkeena runtii kugu soo gudbin doona haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya waxaa maalmihii ugu dambeeyay dalka guud ahaan qaybihiisa kala duwan u muuqanaya mid xaalad adag ay ku jirto iyadoona hadda ay si gaar ah awoodda guud ee dalka u muuqanaya mid faraha kasii baxaya dhanka amniga markii la eego wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xaaladda siyaasadeed ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka uu muuqanayo mid aan ka warqabin madaxda sare ee dalka oo waqtiga ka raadinaya midka kale inuu awood u ka helo dhanka doorashooyinka doorashada Soomaaliya ayaana hadda waxay u muuqanaysaa mid aad saameyn badan ay ku yeelanayso xilli madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya laftigareen eedeymo kala duwan loo jeedinayo oo ku aadan arrimaha doorashooyinka doorashada Soomaaliya ayaana hadda u muuqanayso in xaaladeedu ay ka sii dareyso xilli mas'uuliyiintu ay doonayaan dhamaanba in awood kasta iyaga ay helaan laakiin awoodaha waqtiga kan la isku haysto ayaa dhibaato badan ay yeelanaysa midowga musharaxiinta ayaa horey waxay u sheegeen inay marnaba u dulqaadanaynin waqtiga kan xaadirka madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa waxa ay ka dhex sameynayaan arrimaha doorashooyinka dalka wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ay hadda ay go'aamo cajiib ah soo saari doonaan midowga musharaxiinta kuwa ay ku doonayaan in awoodda guud ee dalka marnaba aan laga wareejin ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha dalka ayay taageero badan ay u muujinayaan inkastoo qaybo kamid ah midowga musharaxiinta ay taageerayaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud Abdiraxmaan Cabdishakuur ayaa horey waxay u sheegeen taageerada ra'iisul wasaare Rooble u muujinayaan inay marnaba ka laaban doonin xilli eedeymo kala duwan ay waqtiga kan xaadirka ah mas'uuliyiinta midowga musharaxiinta ay isku jeedinayaan waxaa hadda u muuqanaysa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya inay aad u sii cakirnaan gooni ah ay galayso kadib guddiga doorashooyinka markii ay doorteen gudoomiye cusub gudoomiyahan iyo guddiga doorashooyinka ee doorteen ayaa waxaa la sheegay in waqtiga kan xaadirka taageero buuxa uu yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyadoona Rooble uu u muuqanayo in Muuse Geela Yuusuf uu ka mid yahay garbihiisa uu ku duulo waqtiga kan xaadirka kadib hore markii la xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro doorashadani ayaa waxay ahayd mid ay si gooni ah ay tartamo xoogan ay Muqdisho ay ugu galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona si gaar ah loo wada aaminsanaa in tiimka taageera Farmaajo ay ku guuleysanayaan hase ahaatee isxulufaysiga doorashooyinka ayaa waqtiga kan u muuqanaysa mid aad u adag Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Rooble ayaa waqtiga kan waxay yihiin shakhsiyaad isku tiim ah isla markaana aaminsan in Muuse Geela Yuusuf uu wax walba u soo kordhi doono Muuse Geela Yuusuf oo dhanka ka soo galay Puntland guddiga ayaa hadda waxa uu muuqanayaa in taageerada uu ka helay xafiiska ra'iisul wasaaraha natiijo wanaagsan ee u noqonayso iyadoo musharaxii kale ee la tartamaya Cabdiraxiin uu taageero uu ka helay madaxtooyada Soomaaliya qaar kamid ah midowga musharaxiinta ugu horeeyaan Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre oo maalmihii ugu dambeeyay si gaar ah ugu mabda' duwana qaybaha kala duwan ee midowga musharaxiinta madmadowga soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta ayaa waxa uu muuqanaya mid natiijo dari aad u xoogan waqtiga kan xaadirka ay la kulmayaan maadaama wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xaaladda siyaasadeed ee waqtiga kan jira ay noqon karto mid aad u adag wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya in ay aad tartanka uu noqon karo mid saameyn badan yeelan kara macada sababta ay mucaaradka uga soo horjeestaan musharaxa uu wato Dani balse waxaa la rumaysan yahay inay diidan yihiin awoodda guddiga ay si buuxda ugu gacan gasho Dani oo ah musharax madaxweyne waxaa sidoo kale suurtagal shay in taageerada Cabdiraxiin ay doonayeen in uu awoodda uu mar kale uu helo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo watay musharaxaasi Muuse Geela Yuusuf oo madax ka soo noqday gobolka Bari waxaa loo arkaa inuu wax badan uu ka tari karo musharaxnimadiisa Saciid Dani oo kamid ah musharaxiinta ugu cadad sanadkan
guuldarrada ay soo gaartay filla Soomaaliya iyo xulafada ayaa ka dhigan in maamulka guddiga doorashooyinka heer federaal uu la wareegay Rooble oo xooggiisa isugu geeyay sidii uu u maamuli lahaa doorashada Soomaaliya. tanina waxay u muuqanaysaa in farmaajo uu aad saameyn badan uu doonayay inuu ku dhex yeesho guddiga doorashooyinka. hase ahaatee Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre ayaa weli qorsheynaya in ay dhabarjab ay ku sameeyaan kooxda sida gaarka ah ee maalmihii ugu dambeeyay ay isugu xirnaayeen oo ay ahayd midowga musharaxiinta midowga siyaasadeed ee waqtigan soo kala dhexgalay ayaa waxa uu muuqanaya mid xaalad adag dalka gelinaysa maadaama ay maalmihii ugu dambeeyay ka soo horjeedeen go'aamada ay wada gaaraan musharaxiinta asaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo ah shakhsiyaadka ugu firfircoon waqtigan xaadirka guddiga doorashooyinka ayaa u muuqanaya inay talaabooyin wanaagsan ay doonayaan inkastoo xaaladda siyaasadeed ee dalka maalinta ka dambeysa xaaladda adag uu galaya haba ugu darnaatay magaalada tani caasimadda ah ee Muqdisho oo mar walba laga cabsi qabo in dagaal waji ka waji ah uu dhexmaro qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta ku sugan magaalada tani. Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa hore waxay u sheegeen inay mabda'ooda marnaba bedeli doonin isla markaana go'aankooda ugu weyn uu noqonayo in ay ka taqloosiyaan koox walba oo taageersan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. hanaan siyaasadeedka waqtigan ka jira magaalada Muqdisho ayaa waxay u muuqanaysaa inuu qof waliba uu doonayo in awoodda guud ee dalka isaga gacanta ay u gasho maadaama sidoo kale maamulka gobolka Banaadir Farmaajo uu waqtigan uu doonayo inuu awood gooni ah uu siiyo sida muuqata awoodda la siiyay maamulka gobolka Banaadir ee ku aadan amniga iyo sidoo kale in caasimada loo madax banaaneeyo ayaa lagu tilmaamay mid siyaasadda la daba socoto. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa la wadaa qorshayaal cadcad oo lagu doonayay in gabi ahaanba xilka laga tuuro maadaama uu taageero u yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo diidan in maqaamka gaarka ah ee hesho gobolka Banaadir ayaa si tartiib ah u ogolaanaya in amniga ugu horeeyo loo madax banaaneeyo iyadoona lagu xumeynayo Rooble iyo saaxiibadiisa. banaanbaxa mucaaradka ee dhiga lahaayeen Khamiistii ayaa la hor istaagay iyadoona sababa loogu tilmaamay in amni xumo ay ka jirto magaalada tani caasimadda Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yara Cali ayaa saxaafadda u sheegay in maalin kasta wasaaradda amniga ay wado dhibaatooyin isla markaana marnaba in la maamuli karin gobolka Banaadir. tanina waxay ka dhigan tahay xaaladda siyaasadeed inay aad dhibaato badan ay ugu jirto magaalada tani caasimadda Muqdisho. tani waxay u muuqanaysaa in ay khilaafka xoogan ee Rooble iyo Farmaajo waqtigan uu noqonayo mid aad u sii kordhaya iyadoona amniga guud ee gobolka waqtigan lagala tashanayo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed duqii hore ee Muqdisho Yuusuf Madaale xitaa Muungab waxay isku dayeen in maqaamka gobolka Banaadir ay raadiyaan hase ahaatee xilka ayay ku waayeen qaarkood. dhanka kale madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magacaabay taliyaha ciidanka madaxtooyada maamulka Puntland. wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya Puntland ayaa waxay sheegayaan in Saciid Cabdullaahi Dani uu hadda u magacaabay taliyaha ilaalada madaxtooyada kadib markii la sheegay in uu taliyihii hore uu xiriir la leeyahay Maxamuud Cismaan Diyaano taasi oo Dani uu ku tilmaamay inuu marnaba midna u dulqaadan doonin. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka Puntland qodobkiisa 8-aad markii uu arkay aqoontiisa iyo kartidiisa iyo way aragnimadiisa ciidan ayaa waxaa la sheegayaa in waqtigan uu magacaabay sargaal kale oo ka tirsan ciidamada maamulkaasi. gaashaanle sare Cabdinaasir Maxamed Muuse Shaati ayaana loo magacaabay taliyaha ciidanka madaxtooyada. xeerkani waxa uu dhaqan galay markii uu saxiixay madaxweynaha maamulkaasi isagoona madaxweynaha maamulka Puntland sheegay in cid kasta oo siyaasadiisa ka soo horjeeda uu talaabo adag uu ka qaadi doono. khilaafka siyaasadeed ee Puntland ka jira ayaa waxa waqtigan uu u muuqanayaa mid laba garab loo kala baxayo, garabna taageerayaan BSF-ta garabna ay taageerayaan Saciid Cabdullaahi Dani. dhammaanba saraakiisha ciidamada ee ka soo horjeeda Saciid Cabdullaahi Dani hore waxa uu sheegay inuu xilka qaadis ku sameyn doono. tanina waxay noqonaysaa caqabadaha waaweyn ee waqtigan xaadirka ka jira qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. waxgaradka Puntland ayaa hore waxay u sheegeen inayna marnaba u dulqaadanaynin cadaadiska Saciid Cabdullaahi Dani inkastoo gaashaanle sare Cabdinaasir Maxamed Muuse Shaati uu noqonayo taliyaha ciidanka madaxtooyada. haddana warar hoose aan helayna ayaa waxay sheegayaan in Cabdinaasir Maxamed Muuse Shaati uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida gaarka ah u taageero madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyadoona taliyihii hore ee madaxtooyada maamulka Puntland xilka qaadis lagu sameeyay taasi oo la sheegay taliyuhu uu ku xiran yahay saraakiisha sarsare ee hay'adda BSF
karta. Tanina waxay ka dhigataa culayska siyaasadeed ee waqtiga kan xaadirka Puntland ka jiro inuu noqon karo mid aad u sii kordhaya walow dadka shacabka ah ee baqdin xoogan ay ka muujinayaan xaaladaha guud ee waqtiga kan xaadirka ah ka jira qaybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi. Puntland ayaa waxaa ka jira xaalad adag iyadoona xaalada adag ay noqonayso mid baqdin xoogan laga muujinayo in dagaal mar kale uu ka dhaco. Guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waa naga intaa. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo sar janaalka wararkeena like iyo share comment-ka noogu dadaalo waad mahadsantiin. Nabadgelyo.